Ku soo dhawow soddon cisho ah oo si iska ah anigu luqadda Ingiriiska isku barayo. Maanta waa maalintii sagaalaad, 8 cisho hore ayaan soo qaadanay. Waxaa inoo hadhay waa wax yar. Waxaan qaadanaa 5 jumladood oo English iyo vocabulary. Jumlada koowaad waxa weeyaan I will handle it. Aniga ayaa qabanaya. I will handle it. Aniga ayaa qabanaya. I will handle it. Aniga ayaa qabanaya. Jumlada labaad waxa weeyaan you never know, weligaa ma ogaan kartid. You never know, weligaa ma ogaan kartid. You never know, weligaa ma ogaan kartid. Jumlada saddexaad waxa weeyaan don't get too excited. Aad ha u farxin. Don't get too excited. Aad ha u farxin. Don't get too excited. Aad ha u farxin. Jumlada saddexaad waxa weeyaan it is easier said than done. Way sahlantahay in la yiraahdo laakiin way adag tahay in la sameeyo. It is easier said than done. Way sahlantahay in la yiraahdo laakiin way adag tahay in la sameeyo. Jumlada shanaad ahna tan ugu dambaysa waxa weeyaan let's take it slow. Aan si tartiib ah u wadno. Let's take it slow. Aan si tartiib ah u wadno. Let's take it slow. Aan si tartiib ah u wadno. Shantii jumladood saas inagu eeg. Ku soo dhawow imkana shantii vocabulary ahayd. Ereyga ugu horeeya waxa weeyaan dangerous, khatar ah. Dangerous, khatar ah. Dangerous, khatar ah. Ereyga labaad waxa weeyaan patient, dulqaad. Patient, dulqaad. Patient, dulqaad. Ereyga saddexaad waxa weeyaan spend, bixid. Spend, bixid. Spend, bixid. Ereyga afraad waxa weeyaan hurry, degdeg. Hurry, degdegid. Hurry, degdegid ama degdeg. Ereyga shanaad ahna kan ugu dambeeya waxa weeyaan repair, dayactirid. Repair, dayactirid. Repair, dayactirid. Shantii vocabulary saas inagu eegyihiin. Ha ilaawina kusoo biirtaan Telegram-keena sidoo kale qaar like saartaan. Thank you for watching.